muddo 18 sano ayuu waday shaqadan oo si iskii ah ama mutadawacnimaha uu waday, waxaana uu ilaa hadda oo uu shaqadan wado uu ku rajo weyn yahay in uu sii wado isaga oo ku faraxsan isla markaana aaminsan in uu wanaag iyo khayr badan uu ka heli doono. waa Cabdilqaadir Cali Ismaaciil oo boqolaal shimbira ah ku qoodiya saqafka sare ee farmasi uu ku haysto magaalada Hargeysa, waxaana toddobaadkii uu shimbirahani siiyaa 50 kiilo oo hadhuudh ah, halka bishii ku dhowaad 200 oo kiilo ay quutaan shimbirahani. saddexda waqti ee dadku ay wax cunaan ee kala ah quraacda, cashada iyo qadada ayaanay halkan ka helaan shimbirahani waxa ay quutaan. 18 sano wadi 18 sano ayaan farmasiga furay. 18 sano maalintii aan bilaabay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida maadaale ayaan ku bilaabay. 3 jeer ayaan maalintii u daadiyaa. aroortii waxaan daayay 12 doornimo, 3 galabnimo, habeenkii oo aroortii cunaan. muddadaas 18 sano ee aan waday meheradaas ay furnayd maalin may qadin. caruurteeda iyaga ay ugu urur badan sababtoo ah waxa ay sameeyaan marka ay ama waqtigeedii ka raagaan ama dib uga dhaco gurigay garaaci jireen oo qadhow guraaci oo dibna xaafado dhan bay wareerin jireen. dabadna war maanta meel bahadaysiin baa la oran jiray marka aan siiyo ay cunaan way iska rawaxaan. haddana xilligeedii ay 3 galbeed markii gaadho oo on time oo go'an ay yimaadaan, xilligaas haddana loo daadiyaa. kharashka ay ku qaataan ama xisaabtooda ay qaataan markay maalintii 4 jeer qaataan bishii waxay cunaan galbad, bishii 7 cisho waxay cunaan galbad ama 6 cisho galbad bay cunaan. galbadda cunaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala anuma siiyo, Ilaahay baa siiya. 350 baa galbadii laga siiya, anuu ma bixiyo, Ilaahay baa bixiya. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa igu soo dhiiba. Ilaahay igumana dhibo igumana culaysiyo. maalin qurna kama habsaamaan, maalin qurna kama daahdo. maad garanin muddada inta leegna waan soo waday. imika Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka ay taydii noqoto ama aan deetii Ilaahay igu timaado waxaan ugu talagalay inay ubadkaygu oon ku ballamiyay inay sii wadaan tabca aan sii wado anigu aan waday iyaguna ay sii wadaan. noloshuna waa laba, bini'aadamku waa tacab, xayawaankuna waa tawakkal. shimbirahan ayaa Cabdilqaadir marka ay arkaan in uu soo galay farmasigiisa xilliyada duhuradii ama casarkii ku soo urura si ay u helaan qadada ama cashada uu ugu talagalay, waxaana Cabdilqaadir uu sheegayaa in boqolaalkan shimbiraha ah ee uu halkan ku qoodiyo ay dadka ka yaqaanaan isla markaana ay saaxiib dhow la yihiin isaga. dhulkeena imika waa abaar, waxba ka cimil ka cunaan ma hayaan, inta inaga eegayaan. haddana waa kuwa inaga baqanay inagu soo hagaagila meelaha qaarkood hadii wax ka cun lahayn. aniga se way yaqaanaan oo dadka way iga yaqaanaan. markaan farmasiga soo galo aan soo socdo 12 meelaha gaadho soo rawaxo ee soo galayo way soo wadayaan si qof aniga garanayo kala halkan ay soo galaan xitaa halkan iska fadhiistaan iska joogaan way iska cunaan. dadka way iga yaqaanaan. diinta Islaamka ayaa dhiirigelisay quudinta iyo daryeelka xayawaanaadka aan caqliga lahayn sida shimbirahan oo kale, waxaana ay diintu dadka ku boorisaa in la ilaaliyo xayawaanaadka bahaa'imka ah sida uu sheegayo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ah gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee Somaliland. xayawaanada ama ha noqdaan shimbiraha ama waxa duula ha noqoto ama kuwa afarta ku socda ha noqdo ama nooc walba ha noqdo in loo naxariisto way, in biyo la siiyo, in cunto la siiyo, in la xanaaneeyo, in gaalada aan ka iman dhulkaas gaalada ah bisadaha iyo eeyaha way dhaxlaan, dhaxal way dhaxlaan, xoolahooda ay dhaxlaan ay qaataan garanaysa. habeenkii ka maqan tahay way rooleysa. taas waxa awlo ku ahayd dadka muslimiinta inay bisadaha xanaaneystaan garanaysa, ay ma taqaana wax siiyaan haddii la ku weligeed iloomis shimbiraha. marka ninka la yiraahdo Cabdirasaaq هذه الشيء شمبرها بدلك جديسة 18 سنة سيني جزاء الله خير إلهي أجرها كسي نكاس وحمل وين بوحجيستي إلهينا وقبنايا أدون كانوا وكهليا فضيق آخرا أجر بوكهليا. خالد فودادي جوب شوك هرجيسة.